kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada barnaamijka muhuraan qaybtiisii 16aad barnaamijka muhuraan waxaan kusoo qaadanaa waraysiyo kala duwan oo nula yeelano qaar ka mid a qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay kadib markii ay xasilooni ku soo noqotay qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya iyadoo ciidamada midowga Afrikana ay door muhiim ah ka ciyaareen soo celinta nabadda iyo kala dambeynta dalka ka jirta qurbajoogta aan ku wareysano barnaamijkan ayaa u badan xubno ka mid ah madaxda dawladda xildhibaano siyaasiyiin saraakiisha ciidamada iyo ganacsato kuwaas oo dalka ku soo laabtay si ay gacan uga geystaan samata bixinta dalkan qaybta hore ee barnaamijkan waxaa marti inoogu ah gudoomiyaha degmada Waaberi Rawda Cabdullaahi oo aan marka hore weydiinay waqtigii ay dalka ka tagtay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bahda idaacada iyo qaasatan barnaamijkan muhuraan oo magacaad u xiiso badan wato wadanka waxaan uga tagay saameyntan guud ee dagaaladan iyo dhibaatooyinkan ee dhacay waxaan ahaa kuleyba qof waalidkeed la socoto marka waalidkii iyo dadkii oo dhan markay qaxeen ayaan ka tagay waxaan ka tagay xilliyadii ay dagaalka dhaceen 93 baa markii ugu horeysay aan wadan ka baxay markii ciidamada midowga Afrika ay Soomaaliya imaanayeen halkeed joogtay xaaladda Soomaaliyana sideed uga fakaraysay waqtigaas kii ay imaanayeen ciidamada midowga Afrika waxaan joogay wadanka Mareykanka waxaan bilaabay anoo dugsi sare dhigtay waxaan bilaabay inaan aad uga qayb qaato inaan u duleelo ama si aan indha xaaladda wadanka oo idaacadahan ka dhageysan jirnay mar walbana waa la soconay markaas waxaan joogay wadanka Mareykanka markaas maxaad isdhaysay xaaladda Soomaaliya way maraysaa xaaladda Soomaaliya sidee ku muuqato walahi marba heer bay taagneed mar muxuu ahaay dee xilli waxaa jiray dagaaladii sokeeye lagu jiray oo aad u dhib badneed oo anigana waqtigaas aad baan iskuulay ugu mashquulsanaa laakiinse markii dambena rajada way soo ifbixisay maalinta ka dambeyso ilaa iyo waxaa aad noo rajo geliyay markaan aragnay madaxweyne Soomaaliyeed oo madaxweyne kale xilkii u dhiibayo isagiina doorashadii codka markii looga badiyay ay bilaabatay rajadaas waxaan u maleysaa inay aad u dhiirigelisay dad badan in wadankii isbedel u yimid dadkii Soomaalidana ay aad ugu bislaadeen dhibkan tirada badan kadib ay u bislaadeen in ay wax qabsadaan markii aad tagtay wadanka ku martigeliyay dalka Mareykanka oo aad waqti badan oo noloshaada kamid ku soo qaadatay ma dareemaysay in Mareykanku uu ku yahay wadankaagii hooyo oo kale marba ma dareemtay mystery Soomaaliya kale aad joogtay inta Mareykanka joogtay wadankaas aan tagnay waxyaabo badan oo wanaag ah baan hotoora ka helnay oo ay kamid tahay waxbarashada iyo asaasiga bini'aadanka waxyaabaha asaasiga oo ah caafimaadka iyo wax kasta oo looga baahan yahay laakiin marnaba ma aanan dhihin wadankaagii hooyo ayaad joogtaa sababtoo ay haddaan wax baranayno waxaan wax u baranaynay ama si aan raadinaynay waxbarashada aan baranayo maanta si u anfici doontaa Soomaaliya ilaa markii dambe aan gaarno wax kasta oo aan sameynayno wadanka Mareykanka anagoo joogna sameynayno inaan uga fikirno arinkan sidee looga faa'iideyn karaa Soomaaliya oo wax kasta noloshayni ay ku wareegsanaatay marka qofku markuu qurbaha joogo wuxuu dareemi macaanida Soomaalinimada iyo wadanimada wuxuu dareemi karaa markuu wadanka ka baxo oo uu arko wadan kale inuu joogo isagoo wadankaas kale xataa u jeeda in laga ixtiraamayo oo xuquuq badan uu ku leeyahay laakiin haddana wuxuu dareemayaa in wax uun ka maqan yahay gudoomiye sidee u arkaysay howlgallada midowga Afrika ay Soomaaliya ka wadaan intii aad qurbaha joogtay howlgalladaas waxyaabaha ugu muhiimsanaan lahaa oo badanaa aan ka hadli jirno waxay tahay midowga Afrika waa xaqiiq waa soo gurmadeen waxay u soo gurmadeen in ay ka qayb qaataan sugista amniga laakiin waxyaabaha dadaalka dheeraadka ah ee loo baahan yahay wali in hadda la muujiyo loo baahan yahay waxay tahay in awoodii ciidanka xoogga dalka ah la kordhiyo la tayeeyo ileen wadan wuxuu ku caawin karaa waa wax yar waliga wadan ma dul saaro yani wadan ciidan mar joogi karo haddii ciidankiisu uusan wadanka la wareegaynin marka ciidanka xoogga dalka ah in la tayeeyo oo waxaad u maleysaa muddooyinkii hore in aad aysan u dardargelin marka waxaan filaa in aad loo dardargeliyo arintaas tayeyntooda iyo quwadooda haddana waxaad arkaysaa in ay arintaas si soo tarayso oo waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala in Soomaaliya ay gaarto in iyada ay amnigeeda iyo wax walba ay heer ay la wareegi karto
gudoomiye hadda dalkii aad joogtaa dowladda ayaad ka shaqeynaysaa oo aad qayb ka tahay waxaadna tahay mid ka mid a gudoomiyaasha gobolka banaadir waxaad bal dhegeystayaasha u sharaxdaa maxaa kaa caawiyey in dalkaaga aad dib ugu soo laabato oo aad shaqadan bilowdo waxaa iga caawiyey markii hore maadaama aan ahaa xagga markaan joogay qof aad ugu firfircoon ama ugu dhunduleelo siyaasadda soomaaliya iyo wax ka bedelkeeda oo xaqiiqdii wadankan ka imid maraykanka gaar ahaan magaalada ohio waxyaabo badan oo aan ka qaban jirnay waxaa ka mid ahaa in dhalinyarada anagoo aan u istaagnay caawinta dadka oo sida abaaraha oo kale iyo dhammaan shirarkii wadanka ka dhici jiray in aan ku yeelin jirnay codkeena iyo ra'yigeena aan kusoo gudbin jirnay kadib waxaan go'aansaday in wadankii aan imaado oo wadankii aan ka howlgalo markaan halkaan imid marka waxyaabihii ugu horreeyay ee aan sameeyey waxaa ka mid ahaa waxaan ka mid noqday guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha oo aan ka qayb qaatay muddadii abaaraha ba'an ay wadanka ku jireen kadibna waxaan istusay maadaama degmo ay aada u muhiimta oo halka bulshadu ay kasoo faracanto ay tahay bulshadu maadaama ay qoys ka kooban tahay qoysaskiina ay ka kooban yihiin dad isku tegay oo hadda waxaa degmooyinka ay u yaqaanaan oo ay tabeelooyinkana waaxye iyo laamo ay noqdaan waxaan is iri haddii aad bulshada hoose ee degmooyinka ee cadaalad iyo nidaam helaan ama si wax laga bedelo wadankii waxay u noqon kartaa tusaale wadanka dhan guud ahaantiisa wax looga bedeli karo sidaas arrimahaas ayaa ugu badnaa waxyaabihii igu kalifayay inaan wax kaga bedelo wadanka oo u soo noqday sidoo kale waxaan kale oo waxyaabaha wadanka igu soo celinaya waxaa ka mid ahaa waxaa takhasuskayga aniga waxaan kusoo takhasusay dhinaca daryeelka dhimirka psychotherapist ayaan ahay marka wadankana waad ogtahay baahi aad u baan ayaa ka jirto dhinaca daryeelka dhimirka because bulshada waad aragta maalin walba waxay ku jiraan qarax dhibaato abaaro marka saameyn badan bay waxay ku sameynaysaa arintaas maskaxiyan ku sameynaysaa marka dhinacaasna bulshada inaan wax kaga bedelo waxyaabihii waxay ka mid yihiin igu dhiirigeliyay imaanshaha wadanka waa hagaag gudoomiye markii aad joogtay maraykanka si aad u fakaraysay wadanka wax badan ka aaminsaneed markii aad timid ee shaqada faraha la gashay iyo markii aad joogtay maxaa isbedela oo u dhexeeya midda shaqo ahaan oo gudoomiyenimo way ka duwan tahay waxaa dhici karta gudoomiye degmo markii aan joogay wadanka maraykanka oo kale wixii aan ka aaminsanaa inuu ahaa gudoomiye qof inuu noqon karaa muqdisho oo kale gudoomiye ka noqon karo qof warlord amase qoryo badan iyo wax badan haysto taas ahaan muxuu ahaay position ahaa yacni booska xilka ahaantiisa ah qaabkaas waa ka aaminsanaa markaan maraykanka joogay laakiin hadda halkaan markaan imaaday in uu yahay xil kasta oo wadanka lagaaga dhiibo in qofka shaqsiga muwaadinka soomaaliyeed haddii uu wax kasta uu haysto dad baa waxay ku dhahayaan dhaqtar baad tahay amase cilmi baad leedahay amase wax kalaad soo baratay maxaa siyaasad ku geliya ama xil noocaasa ku dhiibay laakiin qof kastoo rabo wax inuu bedelo wuu qaban karaa xil kasta oo ka hor yimaado wuuna fikraddii iyo bedelkii uu wadatay iyo wanaagiina wuu gelin karaa marka taa unbaa kala duwaneed laakiinse anigu dadku waxaan ka mid ahaa wadanka aadka ugu soo noqnoqon jiray intaan hadda si toosa ugu soo guurin ka horna aad baan wadanka ugu soo noqday sanado isdaba joog ah dabcan xaaladda wadanka waad ka warhaysaa hadda waxaa jooga ciidamo midooda afrika ah oo dowladda federaalka soomaaliya la shaqeeya masaladahay ciidamada joogitaankoodu waxa uu aqarka horseedi karaa in xal waara oo nabad ah wadanka laga helo waxaa mar walbaba laga maarmaan ah dhisida ciidanka xooga dalka soomaaliyeed taas ayaa waxay keeni kartaa xal lagu waari karo marka xalka lagu waari karo wuxuu ka imaan karaa ciidamada midooda afrika waynana gaarsiin karaan meel laga socon karo laakiinse xalka waaro boqolkiiba boqol wadanka in amnigiisa iyo hanaankiisii iyo sharaftiisa kor loo qaado waxay ku jirtaa ciidanka xooga dalka inay la dhiso iyagana ay muxuu ahay gacanta ku qabtaan waxaana aaminsanahay arintaas arin la samayn kara in ay tahay sida hadda ay ku socoto oo lasii dardargeliyo unbay u baahantaa tan iyo markii aad xilkan qabatay guddoomiyenimada iyo maanta waxyaabay ugu waaweynaa ee aad isdhihi karto waad ku guulaysatay maxaa ka mid ah xilkasta goormaad la wareegtay oo aad ka mid noqotay gobolka banaadir waxaan la wareegay 27 bishii 5 ee May
2016 waxyaabaha ugu waaweyn mar walba waan iraahdaa afaanoo le fara kama qodno oo waxyaabo badan muddo sanadahan jooga waxyaabo badan oo rabay inay i qabsoomaan iyo ma aysan qabsoomin laakiinse waxaan dhihi karaa waxay tahay aan bedelnay guddoomiyaasheenan cusub micnaha guddoomiyenimadu ay leedahay waxaad arkaysaa degmooyinkii hadda inay dadku barteen qiimaha degmo ay leedahay oo dadkii shacabkii iyo dowladdii meesha isku xiraysa ay noqotay waxaad arkaysaa in madaxda qaranka iyo degmooyinkii ay hadda isku xirmeen xafiisyada madaxda qaranka iyo xafiisyada gobolka banaadir iyo xafiisyadii degmooyinka iyo shacabkii waxaa ka dhex muuqda isdhexgal aada u wanaagsan oo aad garanaysid in dadkii ay dowladnimada soo gaartay in waxyaabaha aan ka bedelno kale waxaa ka mid ah qofka inuu kusoo dhiirado in xafiiska degmada uu qof walba u furan yahay oo imaan karo oo aysan shakhsiyaad gaar ah keliya aysan aan degmada loogu adeegin waxyaabaha aan degmada ka bedelay oo kale waxaa ah kor u qaadista iyo kobcinta fikradda dadka ay dowladnimada ka aaminsan yihiin waxyaabo oo shaqo maalmeedka ah oo laga bedelo degmada way jiraan ama dhinaca amniga ha noqoto ama ha noqoto dhinaca hanaanka maamul daadejinta oo kale way jirtaa laakiinse waxyaabaha aan isleeyahay waxay tahay amase wadankan dhan uu u baahan yahay in dadku ay cadaalad helaan og yihiinna haddii xafiiska guddoomiyaha ay yimaadaan ama xafiiska degmada ay yimaadaan in codkooda la maqlaayo rajada aan soomaaliya ka leeyahay waxay tahay in soomaaliya oo israacday oo barwaaqo noqotay in aan helno waa in aan ku guuleysan karno in dadka soomaaliyeed qof walba qarannimada iyo wadaninimada gurigiisa isagoo joogo uu dareemo dadku waa inay leeyihiin wax mideeyo oo ay dareemayaan waxaad arkaysaa hadda waxaan ku jirnaa bishii xornimada oo kale luuliyo dadku waxyaabaha aan degmooyinka aada u dardargelinayna waxay tahay dadku inay dareemaan kooda luuliyo maxay u taagan tahay calankan buluuga ah ee dad usoo dhinteen dad dhiiga u daadiyeen maxaad adigu ka qayb qaadan kartaa marka rajadeedu waxay tahay qofka soomaaliga mabda'a soomaalinimada ah inaan aragno isagoo u dhimanayo oo u taagan oo dareemayo oo wax mideeya ay helayaan waa hagaag taasina waxay ahayd roodo cabdulaahi oo ah guddoomiyaha degmada waaberi waxay nooga warramaysay sida ay ugu dhiiratay in dalkan ay dib ugu soo laabato oo ay ka qayb qaadato xasilinta iyo dhismaha dalkan weli dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka muhuraan oo aanu ku wareysano qurbajoogta dalka dib ugu soo laabtay si ay ugu lug yeeshaan siyaasadda ganacsiga iyo adeegyada kala duwan ee dalka kadib markii howlgalka midowda africa ee amisom kaalin muhiima uu ka qaatay xasilinta dalkan qurbajoogta dalka dib ugu soo laabtay waxa ay dhiiragelin weyn u noqdeen bulshada ku dhaqan magaalooyinka kala duwan ee dalka waxayna sarataa u qaaday rajada dadka soomaaliyeed ay qabaan qurbajoogta ayaa kaalin weyn ka ciyaarta horumarka siyaasadeed ee dalka ka jira qaarkood waxay abuureen goobo ganacsi oo shaqooyin badan u abuuray dhalinyaro aada u fara badan halka qaar kalena ay hirgeliyeen goobo caafimaad iyo kuwo waxbarasho oo ay dadku ka faa'iidaystaan haatan qaybta labaad ee barnaamijka muhuraan waxaa inoogu marti ah xildhibaan daahir amiin jeesow waxaan marka hore weydiinay waqtigii uu dalkan ka tegay iyo howlaha uu kasoo qayb qaatay ee siyaasadda dalka soomaaliya aniga waxaan ka tegay 88 ayaan ka baxay nidaam oo waxaan ku baxay oo dowladda federaalka dowladdii muxuu ahay militariga ay dirayso tababar saraakiil meesha abaanduul la soo barayay ee talyaaniga ayaan ku baxay wixii ka dambeeyey muxuu ahay 89 bishii December markii uu tababarka noo dhamaaday waa ku soo noqon dalkii sidaas aanan diaspora ku noqonay oo aan muxuu ahay aan dalal kale magangeli ugu weydiisan xildhibaan markii ciidamada midowga afrika ay imaanayeen wadanka joogtay markaas xaaladda wadanka sidee u arkaysay ciidamada midowga afrika hadda waaye runtii waqti badan ayaa inagu qaadatay muxuu ahaay xilliga midowga afrika ay soo galayeen aniga xildhibaanaan ba ahaa runtii waxaa ujeeddadu waxay ahayd markii midowgii maxkamadaha iyo dowladdii federaalkeed ay midoobeen dowladdii madaxweyne cabdullaahi yuusuf
markii labadii baarlamaan ay laisku daray oo soo xusheen ayay ka dhalatay in muxuu ahay markaa iyada waxaa jooga wax yaroo ciidamo ah ayaa joogay laakiin ciidanka xooggiisu wakhtigii dowladdii sheekh shariif ayay aad u soo galeen aniga xildhibaanan ka ahaa wax badanaan ka oga waxa ujeeddadana waxay ahayd maadaama midoogii maxkamadaha dadkii ugu firfircoonaa ay dhinaca nimankan dhallinyarada shabaab la yidhaahda ay ku hereen ayaan waxaan isdhahnay ama uun ciidamo kale oo dowladda federaalka intay ka caga dhigato dowladdii kumeelgaarkeed intay ka caga dhigato ay sii joogaan sidaasaynu ku soo galeen xildhibaan markii aad joogtay qurbaha waddankii ku martigeliyey oo kale xaaladdu siday kugu ahayd maxaad dareemaysay in waddankaagii oo kale aad joogto maya marna waddankaaga inaad joogto ma dareemaysid sababta ugu weyn waxaa waaye aniga 89 ayaan dalka Netherland ay magangeli siiyeen runtii dhib waxaa aad kala kulmaysaa marka aad ku cusub tahay waddanka dhinaca language-ka luuqadaha qofka kaliya ee markaas sida ugu sahlan sirfaaf garoobi karo oo ka bixi kara waxaa waaye qofka luuqadaha ee dalkaas looga hadlo xooga saaro oo barto kadib luuqadaha markaad barato waxaad dareemayay in muxuu ahaay nafis ayaad sanadkii 2000 waaba siiga soo hulaaliyo anigu inta badan dalka ayaan ka shaqaynayay oo shirkii carta muxuu ahaay dalka Djibouti ayaan siyaasadda ugu soo biiray aniga ilaa intana siyaasadda baan aan qayb ka ahaa inaan noqdo oo aan tago dalkaas caruurtayda ay jiraan moogay badana kama shaqaynay xildhibaan waxyaabaha ugu waaweyn markii aad waddanka timid waad dhigi karto waddankan waad ku soo kordhisay ama guulo aad wax ka gaartay ma noo sheegi kartaa marka ugu horeyso aad iyo aad waxaan u danaynayay sida dawladahaas ay u shaqeeyaan baarlamaanadooda iyo siyaasiyiintooda sida ay u shaqeeyaan in muxuu ahaay aan waddankayga ku soo kordhiyo waayo markii aad siyaasadda aad ku xiisaynayso waxaad xiisaynaysaa oo road modelku noqonayo dalalka kale marka annaga road model waxaan ka dhiganay iyada oo aan waxba la sula heraynin in muxuu ahaay siyaasaddii la isku afnoqaayo in muxuu ahaay ayna markaasna qori caaradiisa aheenoo af un ay tahay marka waxaan jeclaystay in dalkayga maadaama xiisadiisa mar walbaba ay kacsan tahay jawaabdana ay noqonayso in xabad la isku rido in dadka afka ay iskala hadlaan wada hadalka iyo hadal isdhaafsigana uu daawo yahay qofka inaas hadlaana ay tahay daawadiisu waayo qofku waa neefsanaya markuu neefsadana waxa caafimaad ayuu ka helayaa marka waxaan mar walba aan xiisaynaya waxa waaye in xurriyadda hadalka aan dhiirigeliyo taasna aan waa ku guulaystay marka ay baxaan xildhibaan ciidamada midowga Afrika oo ay wadamadooda dib ugu laabtaan maxay tahay riyadaada iyo rajada ku muuqanaysa rajada iyo muuqanaysa waxa waaye in kaalinta ay baneeyaan ciidamada AMISOM in ciidamada Soomaaliyeed ay buuxiyaan in muxuu ahaay waxyaabaha ay marmarsiyada ka dhiganayeen nimankan cadowga ay meesha ka baxaan in shacabkayna ay arkaan waxa ay sheegayeen oo ciidan sheegan la dagaalamayna iyo dalkii lagu soo duuliyay ay beentay shacabka inay arkaan in muxuu ahaay shabaab ay isqaawiyaan oo ay noqdaan kuwa ummadda Soomaaliyeed laynaya ay ku sifoobaan iyo iiga oo la iska celinayaba waxaad la socotaa madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu doortay halkan meeshii shalay markii la dooranayay ay taagneed aniga markaas xildhibaannimadayda waxaa soo qoray oday dhaqameed ogaaskayga ay soo qoray oo igu soo daray haddana 51 qof oo deegaan doorasho leh ayaan ku soo galay birrina waxaan rajaynayaa hal qof iyo hal cod haddii la gaari waayo xataa nidaam tii mid ka badan inay ama 2,000 oo qof i doorato ama 3,000 oo qof ay i doorato ayaan rajaynaya taas macnaheedu waxay tilmaan u tahay in Soomaaliya ay hore u socotay oo nidaam xur ah oo isku dooran karta ay hesho